bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan maanta warbaahinta uga soo gudbinaynaa warbixinta maalinlaha ee ku wajahan cudurka coronavirus ama covid-19 gudiga wuxuu wacyigelinayaa gudiga coronavirus wuxuu wargelinayaa dhammaan bulshada deegaanada reer Puntland inaysan jirin wax kiisas oo cusub oo la xiriira caabuqa covid-19 maanta ay taariikhdu tahay 5 bisha Abriil 2020 gudigu wuxuu ka digayaa in isgaarsiinta cidii isaga shakida inay qabto cudurka covid-19 ka aynan wax baaritaan ah ku samayn karin goobo ka baxsan goobaha loo asteeyay ama xarumaha karantiilka ee wasaaradda caafimaadka oo qorshaysay cidii baarta iyo cidii isku baartaba labadaba waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah oo waafaqsan arinta ay sameeyeen oo ku tallaabsadeen taa beddelkeeda waxaa gudigu uu ku boorinayaa qofkii isaga shakaya inuu raaco tallaabooyinka caafimaad oo ay bixisay wasaaradda caafimaadka gudigu wuxuu si dhow ula socdaa bahda waxbarashada iyaga oo sii adkeynaya tallaabooyinka ee wasaaradda waxbarashada soo saartay ee ku aadanaa goobaha waxbarashada farayana howlwadeennada waxbarashada in dhammaan goobaha waxbarashada ay sii xirnaadaan ilaa laga gaaro muddada 15 bisha Abriil 2020 markaas oo dawladdu haddii alla idmo ay qaadan doonto amar kale oo ku wajahan iyadoo hadba la fiirinayo wadciga uu marayo ama xaaladda uu koronuhu marayo wadanka gudigu waxay sii adkeynayaan ku dhaqanka awaamiirta ka hortagga caabuqa covid-19 sidoo kalena wuxuu gudigu ka digayaa in la marin habaabiyo arrimaha la xiriira covid-19 ka sida in la baahiyo fariimo aan ku haboonayn oo aan soo marin gudiga ka hortagga cudurka coronavirus ama fariimaha ay soo proof garaysay wasaaradda caafimaadka ee Puntland ugu dambeyntii gudiga covid-19 wuxuu ku celcelinayaa shacabka reer Puntland dal iyo dibadba inay ka qayb qaataan sanduuqa taakulada ololaha covid-19 taasoo loo baahan yahay bulshada qaybaheeda kala duwan inay iska kaashadaan sidii sanduuqaas loo sii abuuri lahaa sanduuq waa la abuuray sidii sanduuqa haddii la yiraahdo loo dhigi lahaa dhaqaalihii Allah naga badbaadishay cudurka aynu uga hortagi lahayn aad baad u mahadsantihiin